gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maanta magaalada Berbera si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoona ay halkaasi ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin xisbiga ka tirsan Salaadiin iyo ugaasyo ka tirsan madax dhaqameedka gobolka Saaxil waxaana hoteelka Barwaaqo ee magaalada Berbera loogu sameeyay xarimo sharafeed lagu maamuusayay gudoomiyaha iyo waliba waftiga la socda xarimo sharafeedaasi kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay Suldaan Cabdilaahi Falaag iyo ganacsade Faysal Cabdi Xasan oo iyagu soo dhaweeyay gudoomiyaha isla markaana u ballan qaaday inay shacabka reer Berbera yihiin kuwa u ooman isbedel isla markaana ay cod ka siin doonaan xisbiga wadani kolka ay qabsoonto doorashada madaxtooyada ee la filayo 3 bilood kadib inay ka qabsoonto Somaliland. maanta halkan waxaan soo dhameynaa gudoomiye guud ee xisbiga wadani Xirsi Xaaji Xasan aad iyo aad baan ku leeyahay soo dhaw gobolkaagii gobol idinkalada maaha oo gobolkaagii soo dhawaan ku leeyahay gobolkaaga inta ka bacdi annagu horta dee wadani imka maana gelin wadani macal xildhibaanada kala soo baxnoo niman xildhibaano ku leh yaanu hayn xildhibaan hore wala deegaana midhiisa imka boon xunaa hore boonu hayn maantana jeerkii siduu dhan yahay hayaanka dawr waan ugu sheego loo abtirin maayo wada wadani aad iyo aad baan soo dhaweynaa gudoomiyaha iyo maxaan ku dhahay musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan gudoomiyaha ku soo dhaweey magaalada gobolka Saaxil ee magaalada Berbera aad iyo aad baan ugu xunaa anaga ka tawaabushaysay baad maanta loo timi laakiin waxaan ku sheegaynaa in maalinta dambe aanu si wanaagsan insha Allah halka ku soo dhaweeyay gobolka iyagana waa guuray si rasmi ah u guuray waxaanu tagnay xisbiga wadani rag waa soo kala horeeyay أنا هوران ها بس اللي يجوا يدبين سوشيال ميديا ديسمبر لما كوني صدق لما كوني يلا باتك يبان حسب جايين تذكرنا رواس وهوبتا أما هبين الله هذا أما تذ كان سوى هبين أما أن أقول بهاللية بيركيو دموع كله توجا حسب جودني برتوجا مدحوينها مشرح نوعنا وعبد الرحمن عرب marka waxa weeye hadii la ka dhigo waxaanu rabnaa leeyahay reer Saaxil waxaan leeyahay waan ridaynaa xisbiga hore ee kulmiye muusana waan isdhaafinaynaa waxaan isku dhaafinaynaa kacdoon cod baan isku dhaafinaynaa kaarkeenin muuse ku ridanaa insha Allah way qarankan wuxuu gaarsiiyay muuse dhaawac dadkoo dhan dhaawac bay ka sitaan rifeerta dhammaan laga wada sitaan mana ogolayno xaqo waxaan leenahay haddaynan yaanu noo celinin waan sharaxanay yaanu dib inagu soo celinin waxaanu doonaynaa inaynu kacdoon cod ku ridno muuse insha Allah gobolkoo dhamina waa wada diyaar dhammaantayo saqiir wa kabiir wadani baan Yusuf Ahmed Maxamed Halac Dhagoore oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saaxil ayaa isaguna gudoomiyaha halkaasi uga soo jeediyay hadallo soo dhaweynaa horta gudoomiye waadna aragtaa gobolka Saaxil waxaanu doonaynaa labada codba anagu waxaanu kala siinaynaa musharax Cabdiraxmaan iyo gudoomiye Xirsi laakiin gobolka Saaxil wuu sugayaa annagoo intan ka ballaaran dadkoo ka ballaaran dadku waxay sugayaan khudbadda musharaxa iyo codka gudoomiyaha oo habeenka waxa ay kaga dhawaaqaan ama waxa ay khudbadooda oo qudun baa la sugayaa insha Allah waanu isu maraynaa inagoo fara badan wixii baahiyaha gobolka Saaxil annaga u gudbinaynaa iyo gudoomiyaha xisbiga iyo ramaax dhamaantayo waanu siinaynaa habeenka wuxuu baynu sugaynaa halka waxay kaga dhawaaqaan oo in codkana ku siinaynaa baahiyo badan baynu qabnaa waynu sugnahay annaguna baahiyaha waxa naga ballanay inaanu gudbino iyagana waxa ka ballanaa khudbadda habeenka ay sheegaan ayuun baynu kula xisaabtamaynaa marka waxaynu sugnaaba waa musharaxii iyo gudoomiye Xirsi oo hoolka weyn ee Mansoor kaga dhawaaqa waxay u qabanayaan gobolka Saaxil gabagabadii gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta iyo waliba xarimo sharafeed loogu sameeyay magaalada Berbera isagoona sheegay in xisbiga wadani si weyn u danaynayo gobolka Saaxil isla markaana uu isbedelo waaweyn ka hirgelin doono hadii uu doorashada ku guuleysto sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu si gaar ah ugu mahadnaqay
suldaan cabdilaahi fallaag iyo ganacsade faysal cabdi xasan. suldaanka iyo ogaaska iyo odayaasha halac dhagoolaya waa mahadsan yihiin. hadda waxaanu ahayn safaro waanu maanta inaanu ka sii qadayno baanu ku talagalay. safarkii aanu ku imanaynay berbera iyo saaxil ba insha Allah taala waanu qorsheynaynaa waa imanaynaa si mugle miisaanna baanu ku imanaynaa baahiyaheeda iyo duruufaheedana anagoo og oo maanta aanu ognahay baanu insha Allah taala jawaabteeda bixin doonaa. hadda gaaraanu ka soo degno waan ku qadaynaynaa laakiin si ku talagalkaygu insha Allah taala jawaab waafiya ayaanu ka bixin doonaa oo bulshada siin doonaa oo isbedelka berbera hanaanka isbedelka halkay kaga jirayso insha Allah isbedel khayr qaba oo berbera u aydo oo dadkeedu u aayo oo horumarka dalka insha Allah taala ka muuqda insha Allah taala yariya weyn u aayaan ayaynu insha Allah taala halkan kaga hadli doonaa. barnaamijka xisbiga ku jirtaa maaha wax inta qof riyooda ku soo toosay waa wax ku talagalay xisbigu oo qorsheeyay oo la iman doono. waana mahadsantihiin. salaam alaykum. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay berbera.